gudoomiyaha golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed Dr. Saciid Cali Fiqi oo wehelinayo agaasimaha guud ee madaxtooyada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Ibraahim Cabdiqaadir Maxamed Baafo ayaa kulan la qaatay saraakiil ka socota dowladda Mareykanka ee qaybta taliska Beledoogle safar shaqo iyo wadatashi u imaadeen magaalada Baydhabo. Shirkan oo qaatay saacado kooban ayaa looga hadlayay iskaashiga dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo taliska ciidanka militariga Mareykanka qaybta Beledoogle iyo sidii loo dardargelin lahaa howlgallada lala damacsan yahay la dagaalanka ururka Al-Shabaab ayaa ka socda gobolada Shabeellada Hoose sidii ay ayaga qayb uga noqon lahaayeen sidii looga hortagi lahaa ururka Al-Shabaab iyo dhibaatooyinka ay ku hayaan goboladaasi ee maatada shacabka ku nool. Gudoomiyaha golaha wakiilada Dr. Cali Saciid Fiqi ayaa sidoo kale saraakiisha kala hadlay tababarada iyo tayeenta kor u qaadida ciidanka xoogga dalka qaybta lixdanaad si ayagana qayb uga noqdaan qorshayaasha Al-Shabaab lagula dagaalamayo ka xoreynta goobaha ay ku harsan yihiin deegaanada koonfur galbeed iyo sidii la isku furi lahaa wadooyinka waaweyn ee degmooyinka. Saraakiisha ka socotay taliska Mareykanka ayaa ballan qaaday in ay dowlad goboleedka koonfur galbeed ka kaalmeyn doonaan dhinacyada howlgallada tayeenta iyo tababarada ciidanka iyo sidii loo furi lahaa wadooyinka guud ahaan degmooyinka koonfur galbeed. Muddooyinkan ayaa dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa waday tayeen iyo tababaro ay u sameynaysay ciidamada qaybahooda kala duwan kuwaas oo loola damacsan yahay in ay ka mid ahaadaan howlgallada lagu xaqiijinayo deegaanada koonfur galbeed. Shirkan ayaa gudoomiyaha golaha wakiilada la yeeshay saraakiisha taliska Mareykanka ee qaybta Beledoogle ayaa waxaa qayb ka ahaa kulamo la rabay in lagula shaqeeyo sidii xoogga loo saari lahaa isku furka wadooyinka iyo sidii loogu xoreyn lahaa la dagaalanka lagula jiro ururka Al-Shabaab.